Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil toogasho ku xukuntay Xasan Kerow iyo Nuur Weyne oo ku eedeysnaa qaraxyo iyo dilal ay hore uga geysteen Muqdisho iyo Maxaas. Xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka ayaa toogashada kadib warfidiyeenka u cadeeyay in maanta lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa eedeysanayaasha oo hore maxkamaddu ay sanadii 2019 ugu xukuntay dilka, iyadoo 3 sano kadib lagu fuliyay dil toogasho. isla markaasna uu gaari ay ka buuxaan walxaha qarxa geeyay suuqa Kaabagoday ee degmada Wadajir, kadibna uu ku qarxiyay dadkii shacabka ahaa ee ka adeeganayay suuqa. taariikhdu markay ahayd 26 bishii 11 2018 qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 12 ruux, isla markaasna bam gacmeed uu ku tuuray laanta suuq bacaad ay sababtay dhimashada marxuum Alif Labool Faarax Cabdulla Cariif xamiinaha geeyay degmada Maxaas uuna ku qarxiyay marxuum Rashiid Cismaan Cabdi oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas. taariikhdu markay ahayd 19 bishii 4 2019 maanta way taariikhdu tahay 31 bishii 10 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa. wabillahi tawfiiq.